barsaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geedi ayaa ka warbixiyay waxyaabihii gobolka ka qabsoomay dhinaca horumarka tan iyo markii uu xilka barsaabnimo ee gobolka Gabiley uu la wareegay isagoo oo sheegay in muddadii uu joogay gobolka uu ku tallaabsaday horumar la taaban karo marka la eego dhinaca mashaariicda JPLG-ga waxa kale oo barsaabku ka hadlay guryaha ay dawladdu leedahay ee dadka shacabka ay gacanta ku hayaan isagoo xusayna dhawaan la wareegi doonaan barsaabku arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri shambagalo madaxweynaha iyo shambagalo ka dambeeyo wufuudta kale la socota iyo haddii wasiirtahay ay saxanayaan bridge-ka isku xidha qalax iyo magaalada halkii ardaydu ka lugeyn jirtay wada ayaduna 1800 mitir oo laamiya waxa kaloo ka socda ayada waxaan kaloo furnay school secondary oo ay hay'adaas Mercy Northstri ko waxaan kaloo socda ayadana imka dhismahooda dhamaanaya sariibati magaalada iyo laba wado kale ayuu laamiya gobolku imka si fiican buu ayuu socdaan meesha la yiraahdo ayadana kala bayd MCH noo ku furnay saldhigna dhagaxiisa dhawayska kooda January bilaabay iyada la soo marayo ayaan soo gudbinayna si xafiisyada qaar waxa weeye wasaaradaha leeyahay lista ay xafiistoodii lagu jiray markaas si looga baxo ayaan xafiisyada ayaan taas lagu kalifaysaa antii dawladdu loo kulantay meesha waa la iska dhistay Yuusuf Ibrahim Geedi barsaabka gobolka Gabiley waxa kale oo ka hadlay horumarka ay ku tallaabsatay degmada Togwa Jaale ee dhinaca jidadka waxa weeye degmada Wajaale waxaan ka fulinay oo taariikhda gelaysa oo mubnikii arkaaba oo yaab doono lix wado oo laamiya oo magaalada gudaheeda oo baqaradii wada hormara oo aan qof dambe oo dhiiri gala iyo baabur dambe oo dhiiri ku qalbaan jirin oo hargeysa maanta ka laami badan Wajaale gudaheedii magaalada gudaheedii gabagabadiina barsaabka gobolka Gabiley waxa uu dadweynaha reer Gabiley gudaha dibadba ugu baaqay inay gobolkooda maal gashadaan oo ay ka qayb qaataan horumarka gobolka Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley